waxaan aad iyo aad u xasuusnahay weliba qalbigay ku taala طبعا kaliya meehi umada Soomaaliyeedna ila xasuusan tahay qaraxii xooga badnaa ee qalbi kasto muwaadin kasto Soomaali ah taabtay isla markaana qalbiga uu sigtay in booska hadda uu joogo ka baxo yani ilin daraadeeda taawad walaaliya qaraxaasi dadka badan oo Soomaaliyeed ayagoo wadada iska socdo wax bana aysan galabsanin ku baaba'ay walaalayaal waxa ka soo wareegay waa hal sano طبعا xanuunku waxa dareemi kara oo kaliya qofkii dhibaatada taabatay ama qofkii wadankii jooga dadkii uu yaqaanay asxaabtiisa ay ahaayeen yani kuwaay waxaan xasuustaa ugu cajiibka badneed waxay tahay gabar isoo wacday dhahday qaraxiisa u dhacay ilaa hadda nolosha dhan waan ka quursaday ayadu qarax maysan ku dhicin laakiin saaxiibad bay waxay iga sheekaysay inay meesha ku dhimatay isku iskool isku fasal ay ahaayeen waxay ugu dhahday maadaama saaxiibteeda anaga aan dadaali jirnay dadaal fiican sameey jirnay ayada adduunka yani ka tagtay ayadoo aysan wax galabsanin ana waxaan isleeyahay maxaad u dadaalaysaa biri waa dhimanaysaa qarax baa lagu dilayaa dhibaatadaas baa kugu dhici karta maxaad u dadaalaysaa yani bal fiiri walaalayaal qaraxaas muusan saameyn oo kaliya eheladii dadkii laga dhintay iyo wixii la mid ah bal dad badan ummad Soomaaliyeed dadkii bulshada u soo bixi lahaa waxbarashada ku dadaali lahaa dadkii dadaalka badnaa xitaa way saameysay ummadda dhammaan way saameysay lidaalika walaalayaal waxaan dhammaan ummadda hadi daawanayso adigay daawanaya hadda waxaan leeyahay waxaan ku leeyahay waxay tahay nafteedana aan leeyahay marka koowaad waxaan aad ugu mahadcelinayaa ummadda dhan ka qayb qaadatay waan ogahay ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan waxay muujiyaan waxay tahay inay falkaas aad ugu xun yihiin isla markaa Soomaalinimadooda ummadnimadoodana ay u taagan yihiin ay tahay waxa ugu horeeya wax kasta laga hormariyo aad bay ugu mahadsan yihiin dawladda Soomaaliya طبعا wanaagay muujisay iyo duqa magaalada saas oo kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala khayr iyo wanaag ha ka siiyo laakiin walaalayaal ilmihi wali waa agoomo nabigana sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay as-saa'i 'ala al-ahmalati dadka u taagan inay u gargaaraan gabdhaha laga geeriyooday oo garabada lagu magacaabo iyo faqiiriinta iyo masaakiinta iyo wixii la mid ah طبعا أجر وحوليا كان قيام الليل وتاعن كأجر بدن قف صوم بدن صومي كأجر بدن وحن إذن ليا وحيتها المها ولي وباهين طبعا ماموين كنمان كود أما نمانكي طبعا كتري حاسس كود ولي بو باهي بدن باكجرتا هلو جمدو واد ما سنتين